Assalaamu calaykum sahlan ka aragtid ba 368.8 dollar oo USDT ah ku jira akoonkan Bybit ah waa Bybitka officialka si aragtid ba xagga sare saa ka aragtid ba lacagtan waxay ka timi 368.5174 ka ah garaaskayga halkan labaad hadda eegto waa maxay garaas baa ku jira 0.09 waa intii yarada ka hadhay markaan trading ku kala hadaalad masarifay spot tradingka oo aan bedeshay marka waxaan kula dulmari doonaa garaaskii oo in badan ka hadlay muuqaalo badan ka diyaariyay maadaama uu soo baxay waqti baan u waayay maalin hore soo baxay inaan soo duubo marka waxaan rabaa si lacagta u sarifan lahayd xogaa ka hor baan u sariftay sahlan ka aragtid ba step by step inaan kula dulmo lacagta u sarifan lahayd kaashna uga dhigan lahayd weliba ugu shuban la EVC-gaaga saadka sahalka iyo dahabka marba kaa doonta isticmaal marka koowaad waxaan rabaa inaan la soo degtid halkan saa aragtid waxaan ku xidhay Frankfurt oo Jarmalka ah waxaa u baahan tahay VPN wax loo yaqaan marka VPN-ka markaa ku xidhatid oo kale maadaama garaaska markaa ku xidhid oo kale eligibility eega sidoo kale Soomaaliya way dafirayaan oo kale marka saad waxaan ula baxdid oo kale lacagta ula baxsid $368 oo kale ula baxdid ka badan baad la bixi kartaa haddaad iga bahalkii badan tahay oo kale in badan baa la bixi kartaa waqti badan kuma bixin jiray computerka waxa laga yaabaa in badan nuusan iska shidnaan jirin marka waa ku tustan oo kula dulbari doona marka hore waxaad u baahantahay inaad timaado halkan oo kale grassfoundation.io/claim oo waa page-ka laga claim garaysanayo una baahantahay inaad ku xidhatid adresska waxaa kaloo xusud badan haddaan garaaska dib ugu laabto oo kale halkan haddaan imaado rewardska haddaan imaado horaan muuqaal uga soo diyaariyay waxaad u baahantahay in akoonkaa ku xidhan yahay emailkaaga iyo sidoo kale aad ku xidhatay adresskaaga oo adreskaad ku xidhanayso waxa isticmaalaysa waxa loo yaqaano solfalere oo sahlan ka aragtid solfalere xoogaa solana oo transaction fee-ga hadhow oo u tegi doona transaction fee-ga loo baahan yahay wuxuu yahay iyo garaaskii halkan baa ku jira marka solfalere si lagu xidhan horaan muuqaal uga diyaariyay haddii kalena website-ka solfalere baad tegaysaa metamask-aa ku xidhanaysaa waad helaysaa cid ku sharaxda iyo si laisugu xidhanayo haddii cilada kula kulantidna ay soo xasuusi oo telegramka igala soo hadli kartaa anaa ku tusi doono si lasugu xidho hadaalada markaad intaas kusoo xidhatid stepka koowaad waa soo hubisaa inuu kugu xidhan yahay emailkaaga garaaska iyo sidoo kale adresskaaga waalid adresskaaga sidoo kale halkan markaad timaadidna waxaa u baahantahay pagekan saad u kaleem garaysta hadaalada waxaan dhigi doonaa text failka telegram pagekaad ka eegi doontaa haddaan telegram ku jiran oo kale xagga hoosudu yaalaa ku dhufo soo gal haddii aaleedmo sidoo kalena intaynu hore u gudbin muuqaalka la egle suulka xagguusa yaalla oo korujeeda ku dhufanaya sidoo kalena channelka subscribe dhe maskax maale oonu ka hadalna si online lacag uga samayn lahayd habab kala duwan kribtada iyo hababka online-ka ah noocay doonta ha noqoto marka channelkana ku xidhno subscribe dhe asxaabtaana lasii wadaag channelka oo lasii sheergareya muuqaalkana dad badan baa jira oo kale oo garaaska maalayay ka dadkaana usii sheergaree si ay uga faa'iidaystaan muuqaalkan uga faa'iidaystaan lacagtooda ula baxaa marka halka timaado waxaad ku dhufanaysaa halkan connector marka hore ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa check eligibility markaa ku dhufatid wuxuu kuu soo saaraya oo kale inaad ku xidhatid waxa loo yaqaano solfalere-kaaga kadibna connect baa oranaysaa markaas ku connect garaysidna halkan waxaa kuu soo bixi doonta claim markaa ku dhufatidna waxaad ku sii tegi doontaa stepka saddexaad oo kuu sheegay sidan oo kale anigu waaba tegey inaad garaaskaaga stake ku samaysid oo stake galisid halkan 21.41 milyan baa stake lagu samaystay oo la haya marka APR-ka ku siinaya waa maxay 56% qodsaan haddaad haysid oo kale waqti kooban markaa haysid ba staking period 7 cisho kale haddaa haysid baxad helaysaa 56 garaas iyo in ka badanba marka waxayna tani u sahlaysaa oo kale garaaska inuu qiimihiisu marba kor usii kaco oo kor usii socdo haddaan qiimaha garaaska eegno oo kale haddaan nimaadno wuxuu maraya garaaska 2.9 afarlaatan saac u dambe wuxuu maraya $3.03 oo kale meesha ugu hooseysta 1.8 marka wuxuu u sahlayaa stakinku inay garaaska oo kale qiimuhu kor u socdo oo garaasku noqdo mid qiimo fiican marka 7 cisho hadda halkan haynaysa anigu waxay waa la baxay 7 cisho haynaysa oo kale kan waad sii gashan kartaa balansiga aad gashanaysa 7 cisho haynaysaa 7 cisho markaa haysidna waxaad helaysaa 56% kale haddii aad 100 gelisay oo kale waxaad ka helaysaa 56% baad ka helaysaa 56 garaasa oo 56.02% baad ka helaysaa APR-ka marka iyaduna waa faa'iido fiican oo stake haddaad samaystid oo kale APR-koodana aad buu fiican waxa la haynaya waa maxay unstaking period inta stakinka ku jirasid oo laga haynayo coinkaaga waa maxay ama tokenkaaga 7 cisho wey marka kan laftarkii anigu markii hore waan ka dulbooday si wacan u eegin laakiin hadda waxaan rabaa si wacan aan u eego oo 7 cisho maxaa dhacaya dhamal buu kuusii noqonaya 56 buu kuusii noqonaya 56.02 baa marba kuusii kordhisa taana waa kugula talin lahaa tusaale qayb haddaa rabtid inaad sarifatid qayb kalena haysid oo kale waxba aad u fiican marka waxaan sugu gudbidana markaad claim kusoo dhufatid haddaa stakinga u beerisid xaggaasa claim markaa ku dhufatidna oo aad metamaskiga ka approve garaysid wuxuu ku imaanaya halkan oo kale kuusoo gelaya halkan haddaan hoos socdo salaan activity oo kale haddaa eegtid oo kale markaan claim garaystay waa kan 648 waa kan soo galay 707.89 baa soo galay waxaana fee laga qaaday transaction fee 0.01 oo kale solana ah marka transaction fee-guna waa muhiim uu ka goosanay transaction fee waa in xogaa solana kugu jirtaa halkan oo kale oo aan ku si loo soo gashay hadaa rabtid inaad soo gashid maxaad oranaysaa halkan ku dhufanaysaa receive kadib adreskana copy garanaysaa meeshaad kaga soo shubanaysaa tagaysaa tusaale kale ii dir oo kale haddaad saad ahaan kaga soo gashatid oo Bybitka kusoo dhex dhigaan iyadoo USDT ah kadib waxaad samayn kartaa waa ka sarifan kartaa Bybit gudihiisa adoo ku dhufanaya halkan oo kale
oo USDT ku soo galay oo kale halka ku dhufto oo kale ay ku qoran tahay ama Solana oo kale xogaa yar baalkii ugu jirta artid baa ku dhufan karaa withdraw waana convert garaysaa marka hore u bedelataa USDT-ga ay Solana qof walba crypto garanaya waa iska self explanatory taa kuma sii daahayo kadibna halkan ka soo sarifata oo ka soo haysta qaabka isticmaal Solana waa kan addresska halkan ku paste garanaysa aad ka helisid mar walba addresska inta ugu dambaysa inta ugu horeysa iska hubi haddii aad khaladid lacagta soo gudaysid marka Solana kala ka dooranaysaa spot trading kala xogaa igu jira oo spot trading ku soo galaya kadib confirm ku dhufanaysaa wuxuu weydiinayaa emailka koodkii kugu soo diray soo ku hubiyo oo ku soo galaysa marka waxay ku soo dhex fariisanaysaa Solana oo Solflayer ah kadib markaad heshido kale ku salaanaysaa lacagtaada claim garaystid oo ka soo claim garaysatid garaaska inta marka la soo dhaafo waxa ugu dambeeya rabeen ku soo waxa weeye inaan kula dulmaro sidii aad lacagtan uga dhigan lahayd garaaska USDT ugu bedelan lahayd waa very simple halkan waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay sendi kadib halkan waxaad ka dooranaysaa garaas kadib halkan waxaad ku paste garanaysaa addresskaad ku diray sidoo kale tusaale kale haddaan imaado Bybit oo kale kadibna aan imaado halkan oo kale ay ku qoranta deposit xagan sare deposit laftirkeeda ka helaysaa marka deposit ku soo dhufatid waxaad ka dooranaysaa garaaska oo u tagi doona hadaalad kadib halkan coinka dooranaysaa waxaan ka dhiganaa oo dooranaya garaas baan ku qoraya halkan kadib garaaska waa kan soo baxay kadib halkan waxaan ku paste garanayaa chainka waxaan dooranaya Solana oo Solana chain ku isticmaalaya garaasku kadib wuxuu ku weydiinayaa ku leeyahay waa inaad qirtaa oo ogaataa in haddii addresska khaldana ku dirtid garaaska oo Solana aan ahayn lacagtaasi lumaso haye waan acknowledge garanayaa kadib markaa ku dhuftana waxaan copy garanayaa halkan copy baa odhanayaa oo addresskana soo copy gar addresskan GWA oo kale waa inaad hubisaa inta ugu horeysa inta ugu dambaysa kadib waxaan dib ugu soo laabanaya Solana kadib halkan aan ku paste garanayo haddii hore uu jira haddaan ku paste garayo waan ku soo baxaya kadib waxaad ku dhufanaysaa max soo total kugu jiro u dirtid kadib waxaad ku dhufanaysaa sendi kadib waa hubinaysaa sendi marka ku dhufatidna xogaa baad sugaysaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo addresskaaga iska hubi sidoo kale waxaa jira scammers kombiyuutarada qaar oo kala gala ama virus scammers ku geliyaan kaasoo marka addresskaaga halkan geliso kale markiiba bedelaya waxa la dhahaa clipboard scammers baa dhamaa hackerska clipboardka oo clipboardka waxa la dhahaa kombiyuutarka marka wax ku gelisidba maskaxda iyo meesha wax ku haynayo clipboardka marka iska hubi mar walba markaad sendi ku dhufatid xitaa si eego kala waqti ku siinaya ku cancel garaysid ti blockchain-ka maarso marka sendi marka ku dhufatid xogaa baad sugaysaa wax ku soo galaysaa halkan oo kale Bybit ku soo galaysaa marka Bybit ku soo gashan halka garaaskaad ka arki doontaa ugu dambeyntii haddaad rabtid inaad sarifto oo kale waxaad imaanaysaa waad ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay trade-ka imaanaysaa kadib wax ku dhufanaysaa spot trade marka ku soo dhufta halkan oo kale keenaya saddex dhibcood ee xagga sare ee bidixyaalaad ku dhufanaysaa kadib halkan wax ku qoraysaa garaas kadibna garaaska waa kan oo garaaska USDT baynu doonaynaa u bedelano garaas USDT baa ku dhufanaysaa oo haddeer waqti xaadirka wuxuu maraya 2.917219 waa ka 2.9 baad u maraya anuu halkan saa ka aragtid waxaan ku sarifta 2.864 waa crypto marna uu kacayaa marna uu hoos buu aaday laakiin garaasku haddeer sida muuqato oo kale maadaama holders badan oo haysto oo saan ku soo tusay APR fiicanna bixinayaan si loo hayo cryptadooda oo garaaska loo hayo garaasku mar walba kor buu soconaya haddeer ilaa uu ka gaadhay $10 oo kale inuu kasii bataa laga yaabaa marka garaasku kor buu soconaya maadaama halkan saa eegtidba 24 volume ka dhex marayaba waa 32 milyan 940,000 inuu hoos u dhaco waa adag hadduu xitaa hoos u dhaco mar walba crypto uu dhacay oo kacay laakiin sida muuqato oo kale garaafka hadda ka eegtidba garaafku abu socda markaan timaad wax ku dhufanaysaa halkan saan kale sell oo kale ku dhufanaysaa intaad iibinayso kala wada dooro halkan intaad jidid 100% baan ka dhigaya kadib wax ku dhufanay sell garaas anoo ku iibinay waliba market qiimaha marka la joogo kadib automatically markiiba uu iibinayaa oo qiimaha marka la mariyo ku iibinayaa ugu dambeyntii haddaad rabtaan la baxdidba oo USDT markaa dhigo oo halkan hadda ku soo laaban USDT waa kan dhigay waxaad tagaysaa abka la dhaho Edir oo kale kadib waxaad oranaysaa ii soo saar USDT yaga address ku siinaya kadibna addresskooda ku diraysaa Web20 ama Tron ay ku siinayaan kadib markaad ku dirtid oo kale saad bi ka dhigayaan ama wax doonaysa adigu marka habkaas waa habkaad ula bixi lacagtaadii garaaska oo aan rabay inaan iga ahayd xusuusin iyo habkaad ula bixi lahayd ku tuso ugu sahlan sidoo kale waxaa jira system cusub oo si garaaska u dhigma taa garaaska haddeer intuu ku siinayo oo kale ku siinaya badankana crypto noocan oo kale ah markay saa u soo baxday waa in la soo socodsiyo wax laga faa'iideysaa markay cusub tahay oo kale haddii heerkan soo gaadho oo kale waa ka faa'iideysan kartaa laakiin waxay ka faa'iido badan tahay markay cusub tahay haddii aan garaas waxba ka garanayn muuqaalo horaan kaga hadlay muuqaalada soo daawo eeg habab kale oo channel ku jira online lacag way samayn kartay way jiraan dhammaan muuqaalada garaas la xiriiro dhan description soo dhigi doona ama channelka ka eegi kartaa hadaan ilaawo wixii aan ku xusay ama ha noqdo VPN ama ha noqdo crypto exchange-ga ama ha noqdo website kala duwan oo boqonayay waxaan soo dhigi doonaa qayb Telegram iyo text file ku jira muuqaalka intaas ku saafmeeray aad ka heshay muuqaal fadlan like dhaado ku Facebook xagu seel ku rijada soo muuqaalka asxaabada si gaar looga faa'iideysan karo sidoo kale hadda channelka cusub tahay subscribe dhaado ku fadlan badhankaasi xagu seel gambalkan furanaysa oo mar walba saxaan muuqaal soo geliyo inta muuqaalka xukun midna. Assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.